السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحابتيدا أدونكم مالكستو كجوكتين جانالكا نقداونيسين وعشور أوفيشيال هدي أيقو عصبتها سو دوا وكمبلالك صفرو عشور أوفيشيال أصحابتيدا كمدنقو وانا كاقا مهد عليها أصحابتو هري إلي جوكتاني آد أيا أمها سنتيهين مانتاي ما شاء الله ومر لباد إيو كليب عصب وصو نقشئه waa ku faraxsanahay markasta inaan hortiina kasoo muuqdo oo ani ininka is arkayno oo insha allah ana wax badan aa iisoo tabinayo ininkana ay fiirsanaysiin ama ay daawanaysiin aad iyo aad aa idinkaga mahadcelinaa asxaabteyda sida wanaagsan oo ina jaan qaadiin ama iila jirtiin markasta waa ku mahadsantihiin maanta cadceedda ayaa i hayso halkan cadceedda ayaa iga hayso ama orax marka asxaabteyda umaleynaa xoogaa kalarka doo saaid igu noqdo orxada madiya a xirana nalma shidanin maanta marka waa idinkaga mahad celiyaa asxaabta ila joogto markasta maantay waxaan idin wadaa kaliib yar oo reaction aan ka bixi doono insha allah kaliibkaas oo ininka ayaaba ila arki doontiin aaba cunugiisa dilaayo marka asxaabta kaliibkaas ayaa reaction ka bixi doonaa insha allah inikoo mahadsan ininka reactionka aniga ma daalo ininkana kama daashiin inaa maasha allah ila socotiin waan idinkaga mahad celinaa insha allah marka reactionkan ila daawada reactionkan wuxuu ku saabsan yahay aabo gabar u dhalatay gabadhii haddana rabo inuu qurta dhaafiyo adduunka waa kaasaa gabar iyo wiilba halku anfaca ilaahay ayaa og marka bal ila fiirsada insha allah intaana idinkaga hordhicin dad badan oo ku nool caalamka ayaa ka dhacday dalka Masar kadib markii aabbo u dhashay dalkaasi uu lugaha iyo gacmaha uu ka jibiyay gabadhiisa oo 4 bilood jir ah oo naaska nuugaysay isagoo sidoo kale isku dayay inuu dilo ninka dhacdadan sameeyay oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud ayaa la shaaciyay inuu arrintan u sameeyay inuusan jeclayn in loo dhalo gabar taas beddelkeedana haddii ay dhacdo uu go'aansaday inuu nafta dhaafiyo dhacdadan oo ka dhacday magaalada la yiraahdo Kafar al-Sheikh ayaa hooyada dhashay Maka oo ah gabadha tacadigaasi loo geystay oo fiidii ay soo duubtay lagu baahiyay baraha bulshada waxa ay uga sheekaysay sida ay arrintan u dhacday markii uu ogaaday inaan uur leeyahay oo aan weliba wada gabar ayaa waxa uu iga codsaday inaan iska soo tuuro anigana waan ka diiday markaas kadib waxa uu go'aansaday inuu i kursado ilaa ay foosha xoog iiga timaado markii aan dhalay kadib waxa uu bilaabay in gabadhii oo annaas nuujinayo uu soo weeraro oo uu garaaco wuuna cadaabay sida aad hadda arkaysaanba waxa uu ka jabiyey lugaha iyo gacmaha fiiriya wejigeeda soomaaliya ma yaabteen horta ma yaabteen yaa adduunka soomaali lala yaabanaa wax kasii yaab badanaa ala arka maanta acuudu billaahi min shaydaani subxaana allaahi wallahi ilaahay ha naga soo gargaaro yaa ilaahay ha naga soo gargaaro arrimanka aad ayay u culus yihiin soomaaliyey aabahan masar ayuu u dhashaa lagu yiray ha u dhasho maxumee waxaa koray gabadha u dhalanaysoba kasoo horjeedaaba gabarta u dhalanayso ayuuba kasoo horjeedaaba maxaa ka geli kartaa marka waa kaas haddii gabar waxaa kora adduunyada gabar iyo wiil adig midku anfacaysa ilaah ayaa og aniga adduunka gabaraan u jeclahaba hal gabar le ilaahay isii kowdha ilaahay ii fiyaabee yaa halkeyga gabar ilaahay ii fiyaa waa ku niyadsama horta halkeyga xabo 10 cunugna iidaa iiga fiican maasha allah 10 gabdhoodba booskeeda iidaa ii buuxi karto ilaahay ii fiyaabeeyo intii gabar haysana gabar allah siiyo gabar la-aanteed adduunyada wax laga oo maarkino ay tahay mabala marka adduunka maarkino waxaa ka yaabto oo waxaa arkaysaa ninkaaniiti waxaa lagu yiri gabarta necabka oo gabarta necab yahay awgeed le waayba waxaa kore u samaynayo inuu waxa kore cunugtaas u dilo
oo wax u dhibaatay cunugtiisa oo waxaa lagu yiri 4 bilood jirtaa 4 bilood jirtaa waxaa lagu yiri lug waa ka jaban tahay garabka waa jaban yahay lug gacanta kale bidaxda waa jaban tahay bismillaahi raxmaani raxiim adduunka markaas soo warwareegto wax badan la arkaa marka ninkan ani wallahi waxa la yaab waxaa ku hadda ka hor maqlaynin oo waxaa ku gabar diida oo haddana markii dambe gabartiisa hoos yimid marka adduunyada wax waay halku anfacay ilaahay yaa og gabdhaha iyo wiilasha halku anfacay aad ma og waa maya ma ogid adig laakiin haddii ilaahay u tooba keento oo gabdho iyo wiil gabdhaha sida ugu faraxda xataa micnaha wiilasha ugu farax ina gabdhahaada ugu faraxdo sharciga islaamka qabo ina waxaa ku u faraxdid gabdhahaada markay gabar ku dhalato wiil markuu ku dhasho iyo gabar markay ku dhalato isku sam ina farxadaada ay tahay wallahi ana farxadeyda gabdhahay bijacashaa wallahi beemay sheegaa Soomaali Maxamed gabdhaha saan u jeclahay waxa ku wiilasha ina u jeclahay ina laga yaabo marka wiilasha iyo gabdhaha horta waa jeclahay laakiin gabar ilaahay waxaan dhijir markasto wallahi gabdhaha naxariis badan gabdhaha waxa ku kalsooni badan gabdhaha guriga lagu aamina waa ogtii inaka marka Soomaaliya ilaahay dambigeena ha afiyo ninkaas horta hadda waa iga yaabshay ani Soomaali ma ahan laakiin si fiican kelmad fiican ay u mar lahay hadda dhibka waa badan yahay ilaahay dhibka naga soo gaaro aad iyo aad sheekadu xaraar tahay ma arkino marka hadda ninkan bal halahan aan sii dhameysano xitaa ma awoodo in kor loo qaado iyo in gacmaha lagu taabto gabadhayda waxay galabsatay ma jiro oo aan ahayn in loo dilay maxaad dhadig u noqotay iyaduna ma dooran taas ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka dhigay oo anigana isiiyey dhinaca kale baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey gabadhan yar ee Maka ayaa muujinaysa in gabadhu ay soo gaareen nabar xoogan iyaduna dhaawac culus ay ka soo gaareen garabka bidix jilibka lugtiisa midig iyo waliba jab ka soo gaaray gacanta bidix ciidamada ammaanka dalka Masar oo baaritaano ku sameeyay gurigii uu degnaa ninkan ayaa u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan isagoona loo taxaabay xabsiga xeer ilaalinta Masar ayaa lagu amray inay si degdeg ah ay dacwad ugu soo ogaan ninkan si maxkamad loo saaro isla markaasna loogu xukumo ciqaabta ugu adag si kastaba arrintan ayaa carab badan ka dhalisay baraha ay ku kulmaan bulshada gaar ahaan dadka ku nool dalka Masar waxaana dadka qaarkii ay ninkaasi ku tilmaameen inuu ahaa qof dameer ah oo aan damiir lahayn iyagoona codsaday in lagu xukumo ciqaabta ugu adag ee qof lagu xukumo waa maqashana umaleha مسكينتاس عنقتاس يرتا عبد ما قلبسنين wax ay halayso male maanta qof ay dib u geysata male laakiin aabihi wallahi waa nin doqon hada taqaano waay dadka reer Masar waxay ku tilmaameen nin ibarkiisa inuu yahay oo dameer waa dhaafa kaas hilib doon faaro cuna umale inkaar kugu dhacday wallahi billaah kaas ashma ah xaaladiisa ma qurxoon barkee waxa waay biriga nin asagi waxa ku yiri cunugow dhalay hada saas sameeyay ma jirto qof bila aadna saas sameey karto marka wallahi xaalad adag miskiintaas wallahi ilaahay waxa ku cunugta saqiir waaye Allah u yaree Allah u yasiran leenahay sababta waxa dil aabeed ku dhifto maanta qofna oo ka waxay karto male laakiin asagana wuxuu maraa iqaab iyo wuxuu mari doonaa cadaabna u dheeriyaa markii cunug saqiir oo waxba ka galabsano isugu dhalo u dhashay hibad ilaahay ku sii hibo ilaahay ku sii waayo waxa waay rigaal ilaahay xaqiis kaaga timido ilaahay kugu ilaashay waay marka ina adiga ku nacfisan leh loo baahan yahay maana ina waxa ku dhedheesho ilaahay wuxuu ku sii oo birina ka naqahayn deen ilaahay ku sii waay deen ilaahay ku sii ninkii oo deen ilaahay sii waxa ku dhedheelay kaas waxa waay nin xayawaan waay nin dhimo waay nin lagu tashakar ma aha ilaahay waxa ku shartiisa iyo wuxuu la wareegay Allah muslimka ka qabto wallahi cunugtaas masaakiinka oo yartaan ilaahay ha u xeeyo ha u boogo dhayo markee waa aragtaan Soomaali Maxamed cunug biriga ku dhashay gabdhahaada iyo wiilashaada kala jecesha maya kala ma jeclid
qofta oo ilmaheyga kala jecla ku dhahayso xoogaa qof dhimo waay ninkaas ani waxaan aaminsanahay inuu dhiman yahay aaminsanahay ani kaas hala baara dhihi lahay ani wallahi laakiin yaa iga maqlaaye meeshaanaan ku arkay baraha bulshadaan ku arkay marka inaan reaction kasoo baxsha iska jeclaysto ma fahanteen yaa ilaahay dembigiisa anag ilaahay nama saaro qof isagana islaamnimo sheegaysa waay ilaahay waxaa kori dembigeena dembi waalidkeena alla asturo laakiin cunugiisa u dil meeshaana soo saari doonaa bal arka nin waxaa kori xoogaa dhiman inuu yahay waa fahmayba wallahi marka dembigeena allaha cafiyo soomaali maxamed waa idin salaama reactionkaasaa idinla qaybsanaya maanta inaa idinla wax alla waxaa arka idinla hor imaado mar hore idinka badan qaada insha allah haddii ilaah yiraahdo clipkana intaas inaan kusoo afjari doonay u badan tahay ninkaas ayaa reaction aga bixinayay insha allah soomaali maxamed waa idin salaama meel kastoo joogteen adduunka jawiga ha idii wacnaado ilaahay waxa kula cuduradan iyo waxaan wareegayan allah naga qabto dhibkana iyo dhibaatada adduunyada taalna allah naga qabto layaabka adduunka waaye layaabka adduunka markaa aragto saan oo kale waaye marka idin salaama insha allah clipkan clip ku xiga intaan ku kulmayno saxaabteyda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوجا يدي وعنا إن شاء الله.